بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وشهر المبارك شهر رمضان المبارك إن شاء الله كلنا. وحوي ما أنت وحين كنت عشانتي عشرين ود بيسي بشهر رمضان إلهي بركي وحان كسو بيغنتي مالنتي قرني مدينة ستيجي تبنكي مي. إلهي سبحانه وتعالى وتصونك أجركي سهين السيو بركدي سهين السيو. أنه دعاي سنو ونمعضا إلهي نسيي أنه كفايدي سنو. حنونك أجرنا أنه كدعاي سنو. قرني مدينة أيام ما أنت الحصية marka ugu horeysa waxaan halka kan hambalyo u dirayaa hambalyo leeyahay qaranka Somaliland, xukuumad iyo shacbiga. waxaan ugu horeysiinayaa salaanta sida mudug yahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo familiyadooda. waxa aan raacinayaa golaha wasiirada, golaha agaasimayaasha guud, golaha maxaan ku yiraahdaa sharci dejinta, wakiilada iyo guurtida, golayaasha deegaanka, ciidamada qalabka sida military iyo booliis iyo ciidamada jeelka oo ah ragga aynu ku soo jeedno markaynu nagu soo jeedno aynu hududno iyo soo jeeda nabadda inoo suga qaranka naftooda u hura ayaan si gaar ah u salaamayaa. waxaan salaamayaa dhammaan shacbi weynaha miyi iyo magaalo, ciroole iyo caruur, rag iyo dumar, qurba joog iyo qolqol joog, dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo. maanta maalin aan wada leenahay weeye, maalin aan muxaafid iyo mucaarad iyo dibad joog iyo guda joog aanu kala jirin, ari raac iyo dhakhtar aan kala lahayn. nin waliba mihnadiisa uu ku cisaysan yahay, dadkuna wuu u baahan yahay. hawl aan loo baahnayna ma jirto, hawl xaqilaadina ma jirto. qof waliba maaragtay meeshaa kuga jira qaranka ayaan leeyahay hambalyo. waxaad tihiin dhammaantiin muhiim baa tihiin, qof laga maarmaa ma jiro. qof waliba qaranka waxbuu wax qabtaa. ka beerta qodiyaa beer buu qodiyaa, ka xoolaha inoo haya, ka dukaanka haya, ka dhakhtarka ah, ka wasiirka ah, dhammaantiin shaqooyinkooda muhiim ayaynu haynaa. nin waliba inuu aamino inuu qarankan wax taraayo oo qarankani tahay waxa isu keenkeenana uu yahay mid xalkii awoogay. awooyaasheen dhaxalkoodii dee ninkii iska saaraya waa gooni, laakiin nin laga leeyahay oo laga xigtaysanaya ma jiro. ninkii diida ee ka taga waa eerkii. awooyaasheen dhaxalkoodii baynu wada haysanaa, cidna maaragtay cid ku tagari kala fari mayso. waxaynu samaysanay nidaam uunaynu isku xukunno oo ah inaynu doorano mar walba ciddiinu hogaaminaysa shantaas sannadood. ciddii markaa magaranaysaa ku guuleysatay aqlabiyaddu ay doortaan inaynu la shaqayno, aynu fursada dambena sugno, aynu magaranaysaa la xisaabtano dadka mas-uuliyiinta ah. la xisaabtankaas isaga aanu noqon inaynu lugaha qabanno oo horumarkii naga dhammaado muran iyo maxaan ku dhahay isqabqabsi. waqtigu maaragtay dee waa iskuriya maaragtay saacad maalintu waa 24 saacadood habeen iyo maalin. saacad baynoo kordhinayaa ma jirto. marka inaynu qofkii aynu xilka u doonay 5 sannadood muran ku dhammayno iyo arrimo magaranaysaa dee gudahayna ah, iyadoo cadow badan aynu leenahay. cadowgeenu waa fara badan yahay, cadowgeenu wuu ku farxaa markaynu murmayno. laakiin waxay Somaliland qiimo ku leedahay inaan murankeedu inaanu dhaafin xuduudkeeda inaanu dhaafin oon cid kale soo faragelin. aad baan ugu mahadnaqayaa shacbiga Somaliland dareenka caynkaas ee wanaagsan. laakiin taa ku dheed waqti badan bay naga qaadataa, inaga lumisaa. aynu waqtiga ka faa'iidaysano oo ciddaa maaragtay dee loo idmado mar walba hawsha ay qabanayso ee qaranka loo qabanayo horumarka ah aynan kaga jeedinin magaranaysaa wax gudahayna ah oo qalaasa oo wax midha dhala oo leeyahay jirin. muran ma dhalaysa oo aan meel alla meeluna geenaya shiligan waqtigaynaga lumin. aynu si wanaagsan oo nadiif ah talooyinka u soo jeedino, aan qaladaadka jira u sheegno, aynu keenno xalal maaragtay si dadka shacbigii ay u helaan xal. markaad daliisha keenteed xalkeedana keento, haddaad mucaarad tahay markaasaa la heli karaa waxqabadkaagana dadku waa dhulka la soogan karaan. isbedelka haddiiyo jeer dadku raadiyaan waxa weeye afkaar kala duwan in la naaqisho. laakiin maanta waxaad moodaa inaynu qarankeenii madaxweynihii aynu dooran
badanay had iyo jeer muran aynu ku hayno oo waqti badan inagaga lumay wax laynagu soo dhex tuuro kelmado yaroo cadowga soo dhex tuura waqti badan inaga qaato barnaamijyadan oo dhalinyarada lagu jihaynayo oo lagaga duwaayo dariiqa toosan ee dhismaha somaliland uu jiro waxaynu u baahnay waxaasoo dhan inaynu taxadir ka yeelano oo gudaheena aynu magaranaysa inta aynu eegino khilaafkeena aynu eegno faragelinta laynagu hayo iyo cadowgu meelahu inaga soo galaan waxaan jecelahay halka kan kolleyba hambalyadii markii aan dhameeyey dee waxaan nin weyn maaragta hambalyo kuma koobnaadee dardaarankii baan inoo raaciyey inaan inoo duceeyo oo maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala horta dadkii mujaahidiinta ah ee uu dhintay iyo dadkii iyagoo waxalla waxay geysteen jirin shacbiga ahaa la gumaaday diyaarada lagu duqeeyey laysugu xidhay magaranaysa sidii arigii la dhisi jiray magaranaysa madaxa laysugu wada xidhay rasaadka la mariyey in aan u ducayno ilaahay subxaanahu watacaala inuu qabriga u nuuro inuu dembigooda dhaafo inuu ilaahay subxaanahu watacaala inagana quluubteena isku hagaajiyo uu soo duwo quluubteena oo aynu magaranaysaa waqtiga aynu ka faa'iidaysano oo aynu isberbertaagno xukuumaddu barnaamijyaday wadee horumarka ah oo aynu inagoo la xisaabtamayna haddina sii dayno inuu lagu hanayno hayno kasii dayno oo jaafaajirqo inaga yaraado ayaa insha allahu tacaala idin jecelahay mucaarid iyo muxaafid dalkan waa wada leenahay waxaynu ku tartamaynaa waxa weeye waa kursi marka lagu tartamaayo dee haddaad dadkiiba aad dhib u kayto oo aad dumiso dee maxaad ku tartamaysaa marka waxa weeye tartanku ha noqdo constructive ha noqdo dhismo iyo saasaan wax u qabanaya iyo sidaa aad u qabatay si ka wanaagsan baan hayaa aynu ku wada doodno aynu ku doodno arrimaha caynkaasa meel fiican baa dowladdeena ay gaadhsiisay qarankan waa hubaal weeye waa inay deyno badan bixisay waa hubaal weeye inay maxaanku idhahdaa haddana isla markaa ay wax badan fara badan ay kor u soo qaaday oo halbowlaha shaqada qaran ha noqoto shaqaalo badan oo la qoray ha noqoto jidad la hagaajiya ha noqoto mashaariicdooda inta badanna dee dowladdu had iyo jeer sanadka saddexaad iyo sanadka afraad baa maaragtay sanadka hore waxa weeye sixid baa binaadamku la gala oo markaad xilliguu doorto ood ku cusub tahay sixid baad gelaysaa sixidii 2 sannadood oo weliba in badan aan qabo in shacbigu sabab u ahaa oo marano badan oo aan loo baahnayn iyo qasas yaroo hoose iyo faragelin xooga waan markii hore jirin ay jirto xagga dibadda inaga socota marka waxaasoo dhan eegto waxa weeye waqtiyadii programmadeenu inoo bilaabmi lahaayeen oo sanadka saddexaad ayaa insha allah u geli doonaa arrimo badan oo wanaagsan ayaa soo socda waxa weeye laakiin iyana waqtiga yaa la lumin qaranka aanu wada dadaalo maatidayna aanu naxno danta guud aan ogaano waxay tahay dad badan baa markay hadlayaan danta guud ka dhiga inuu leeyahay ama madaxweyne ama wasiir leeyahay ama agaasimo leeyahay ma laha danta guud waxa weeye waxa keliya wax ku leedahay waxa keliya ee adigu aad wax ku leedahay ta fardiga ah iyo ta reerku leeyahay midna waxba kuma lihid dibadaad ka joogtaa laakiin qof waliba wuxuu leeyahay waxa weeye danta guud marka danta guud marka laga hadlayo in lagu shaambadeeyo qof waxa weeye waa qontafo weeye waa ceebeen weeye maaha wax magaranaysa caqliga galana maaha waa waxaad adigu leedahay kaagan diidaya danta guud ee ceebaynaya waxa keliya luqubeed wax ku leedahay waa taa waxba kuma leeyahay danta qabaayilku day reerkiin uu leeyahay nin baa leh fardi baa leh laakiin tad wax ku leedahay waa dantaa guud marka time la gartaa wanaagsan oo danta guud aynu wada guntuno waxaa jira halka kan maanta cudur baa jira cudurkaa jira ilaahay subxaanahu watacaala dad islaamayuna qadarka waa aaminsanahay naftuna inay dhimanayso waanu aaminsanahay laakiin inaynu isbadbaadino naftaa ku degaysa badbaadada inuu qofku isbadbaadiyo marka inaynu qaadano talooyinka ay soo jeedinayaan mas-uuliyiinta loo xil saaray maxaanku idhahdaa xanuunkan covid-19 iyo nimanka dhakhaatiirta ee professionalska ah inaynu taladooda qaadano in la ogaado inaan dowladdu amar ay bixiso waa inay fulin karaynin haddii aqlabiyaddu ayna kula socon waxaa dadku weeye haddii dadku wada dambiilo noqdo maxay noqonaysaa maskartu ma qaban karaysa may weeye marka waxaynu u baahannahay inaynu iswaanino oo waanadaa qaadano oo aynu ku camal falo oo qof waliba intuu mas-uuliyadda kasi qof aan mas-uul ahayni ma jiro adduunka nin waliba intuu ka mas-uulka yahay uu gaarsiiyo
intuu qaban karana qabto niyaddana aynu issaamaxno oo dadka masaakiinta aan u naxno waxa lagaga baxaa arrimaha masaa'ibka caynkan oo kale ah waa sadaqada inaynu dadka hoos loo eego oo danyarta la eego oo masaakiinta la eego oo laajiyiinta la eego oo qofba qofku ka hooseeyo u naxariisto dee aanad qof kor u eegin oo xasadka la yareeyo xasadkuna waa musiibo kale in xasadka la yareeyo oo nimcada ilaahay ku siiyana aad ku shukri noqdo ood ku mahad noqdo tu yar iyo tu weynba alxamdulilah kelmadda la yidhaahdaa way baraka badan tahay haddaad barato kelmadda la yidhaha alxamdulilah wax walba bisinkana u qabato markaad cunayso ilahay waa ku barakaynaya somaliland iyo soomaali dhaqanka alxamdulilah way ku yar tahay wax walba waxay ka sheegaan wax qalada shaqo xun dukaan xun wax xun markaad waraysanayso warxumaanta ka daayo wax wanaagsan ku sheega ilaahayna u mahadnaqa qof walbana eeg qofka kaa itaalka yaree kaa baahi badan ee caafimaadka markuu ilaahay ku siiyey ka xanuunsanaya eeg marka xoogaha aad haysato kaasii xoolo yar eeg markaad ubaad haysato kaan haysan eeg sidaa isugu naxa oo maarata alxamdulilah la badiya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu